Diyaaradaha Ruushka ee dagaalka ee Sookhay 57 ayaa maanta dulduulay gobollo badan oo ka mid ah dalka Ukraine. Ukraine oo sheegtay in ay hawadeedu tahay no-fly zone ama ka caagan diyaaradaha dagaalka ayaa haddana korduulista diyaaradaha Sookhay 57 ay muujinayaan dabacsanaanta ka jirta dalka Ukraine dhinaciisa difaaca hawada, iyadoo halkaasi uu Mareykanku geeyay nidaamka difaaca Mareykanka ee Patriotic ama PAC-3. gobolada ay dulduuleen waxaa ka mid ah gobolada Donetsk, Kharkiv iyo Crimea, Martys iyo Lugansk. sidoo kale sida aan ka warhayna toddobaadkii hore ee la soo dhaafay ayay diyaaradahani waxay baacsadeen diyaaradaha Mareykanku ay leeyihiin oo marayay badda Black Sea ama badda madow. diyaaradahaas oo ah diyaaradaha istiraatiijiga Mareykanka ayaa la eryaday oo gaar ahaan nooca loo yaqaan 52, kuwaas oo ah kuwa xambaaro bamamka waaweyn ama gumacyada nuclearka. sida aan ka warhayna gantaalada ee diyaaradahan dagaalka ee Sookhay 57 ayaa nooc cajiib ah isla markaana muujinayo in Ruushku wadamada hubka u iibgeeyo iyo hubka oo kala haysto tayadooda farqi u dhaxeeyo. sida aan ka warhaynay Ruushka oo dalalka Azerbaijan iyo Armenia muddo dheer ka iibin jiray hub daalan ayaa hadda waxa uu muujinaya inuu la soo baxay hub casri ah isla markaana diyaaradihiisa Sookhay 57 ka tayo sareeyaan diyaaradaha Mareykanka ee F-35. diyaaradaha Sookhay ayaa xoreystay hawada u dhow dalka Russia iyo Ukraine isla markaana gaar ahaan badda Mediterranean-ka iyo Black Sea, kuwaas oo gebi ahaanba ka caageen diyaaradaha reer galbeedka inay soo galaan. diyaaradan oo ah diyaaradda nooca jiilka shanaad isla markaana la saadaalinayay in aysan gaareen diyaaradda F-35 ayaa waxay u muuqataa in ay hadda la soo baxday tayo aad u sareyso iyo dardar leh isla markaana ay tahay diyaarad aan aadanuhu loolin karin. Ukraine oo sheegtay in ay hawadeedu ka caagan tahay diyaaradaha dagaalka isla markaana ay tahay no-fly zone lama soo galaan ayay maanta burburisay hawadaasi, iyadoo isku haleynaysay Ukraine gantaalaha difaaca reer galbeedku ay leeyihiin gaar ahaan kuwa Mareykanku soo saaro ee PAC-3 ama Patriotic. gantaalaha Mareykanka ee kuwa uu sameeyay dalkaasi UK, Faransiiska, Germany, dhammaan iyo wadamada NATO ku jira ayaa la isugu geeyay, balse waxay u muuqatay inay hakin waayeen isla markaa xataa raaderadoodu ay qaban kari waayeen Sookhay 57 oo diyaaradda maanta la hadal haya caalamka oo idil. Sookhay oo ku dhawaatay duleedka magaalada Kiev gobollo ku dhow dulmartay ayaa waxay ahayd fariin iska cad oo ku wajahan Ukraine inaysan hor istaagi karin marnaba Ruushka.